waxaanu isugu yeedhnay inaanu idinka warbixinno haddii aanu nahay rugtii ganacsiga iyo baac mushtarkii waaweynaa ee keenayay agabkii daruuriga ahaa xaaladda maanta marxaladda dalka uu maraayo iyo waxa inoo yaalla inaanu idinka warbixinno halkan waxaa fadhiya maxamed cali oo ah Omar Company cali ibraahim ciise oo cali waraabo loo yaqaano oo isaguna u gaar ah inuu keeno shidaalka ragga kambanida oo ina keena ah halkana aadan baa fadhiya oo isaguna ah xogayaha ururka dawooyinka keena marka saddexdii ugu weynaa baahiyaha loo qabay weeye raashinku wuxuu u qaybsamaa soo dejiyayaal iyo qaybiyayaal oo loo yaqaan distributors iyo retailerska dukaamada ku siibiya dhammaan ganacsatada wax keenta waaweyn ee soo dejisa raashinka oo uu ka mid yahay Omar Company Indhadeere Company Al-Ikhwa Salama Group Sabawanaag Horyal Al-Huda Muumin Group Al-Nuur iyo Somali Trading intaasiba oo qaarkood inala fadhiyaan waxa ay og yihiin oo ay ballan qaadeen wax raashina oo wadanka ka go'aya inaanu haba yaraatay jir oo inoo buuxo oo kaydin loo yahay waxa kale oo ay og yihiin inuu inoo soo socdo oo aanu muxuu ahaa taa hore oo aan ka maran tii kale ku soo gaadhis oo halka wax raashina oo dalka laga warwarayaa inuu ka go'o aanu jirin kaasi waa dhinaca raashinka dhinaca dawooyinkina waa inoo buuxaan wixii hore inoo oli jiray way inoo yaalaan waxaan inagu soo kordhay ee la yiraahdo cudurka coronavirus khuseeya ee dawooyinka ah ee ka mid yihiin nadiifiyayaasha gacmaha lagu nadiifiyo oo ka mid yahay waxyaabaha afka lagu xidhay maaska loo yaqaan intaasina way inoo taalaa inta soo socota ee inoo imanaysana xukuumaddu madaxweynaha ka yahay Muuse Biixi wuxuu ballan qaaday in cashuur dhaaf dalka lagu soo geliyo wixii hore inoo yaalayna aanay ka bixin dalka waxa inoo raaca shidaalka dhammaan haamihii shidaalku way inoo buuxaan markay inoo buuxsameen haamihii shidaalka ee xukuumaddu kuwii profitka ahaa ee u dahabshiin lahaana waa inoo buuxaan maraakiibtii kale waa soo socdaan shidaalkaana wax warwari isaga kama jiro waxaan haddaba ka warramaynaa qodobka koowaad ee ah raashinka dadka imika xalayto aad moodaysay Ramadaanta ee kuyuga ku jira buuqa waxa abuuray dadweynaha kow miidiyaha warka duubay laba iyo dadka wax la iibsaday ee wasaaca raashinka qaybiya ma aha soo dejiyayaashii wax sixira oo ay soo dejiyayaashii kordhiyeen ma jiro cidda wax kordhisay ee ah sida la sheegayo dadkii qaybiyaha ama tukaamadaha dawladdu iyada oo xil saaran sixir bararka in ay wax ka qabato annaguna waa kala shaqaynaynaa cidii $1 iyo wax ka badan iyo wax ka yar toona ku kordhisa sixirkii wuxuu marayahay waa dambiilayaal weeye waxaanu faraynaa inay ummadooda u turaan xukuumadana ka mas'uula inay sixir bararka wax ka qabato wana xil saaran annaguna waa kala shaqaynaynaa waxa laakiin xukuumaddu oran mayso dad uu kuyuha galina waxa iibsanina dadkii markaan wareysanay oo aad tiraahdo adeer maxaa ku helay mid walba wuxuu koonaya raashinkii baa go'aya lahaa dumarkeena waxay ku oranayaan carruurtii dibadda nala soo hadasho tiri guriga dhigta raashinka inaga dalkeenu uu inoo yaalaa raashinkiina uu inoo yaalaa waliba waxa inoo dheer raashinkii hadhuurka ahaa ee inoo soo go'ay oo isaguna meel walba ku aasan boqolihii lagu shubi jiray kaydkii dawladda xukuumadda yaala oo ay wasaaradda beeruhu soo geysay marka raashinkaasina waxa la waxaba yaraatay warwar laga qabo wax dawo ah oo warwar laga qabo wax shidaal ah oo warwar laga qabo midna ma jiro dadkana waxaanu faraynaa inay dadkooda u turaan ganacsatada ah nimanka ah distributorska iyo nimanka ah haddii rabbi xukmaayo muxuu ahaa macdaarleyda intaasaan idinku koobayaa wixii su'aalana waa idinka jawaabayaa odayaashana waxay diyaar u yihiin
wixii su'aala ka weydiisaan waxyaabaha khuseeya inay ka jawaabaan waa mahadsantihiin laakiin su'aal weydiiyo Jamaal Caydiid gudoomiyaha rugta ganacsiga magacaygu waa Petri Kosaar telefishinka sahan ayaan ka socdaa intii xanuunkani soo baxay warwarka badan dunida ku haya waxaa jira inaad dawooyinkii iyo raashinkii iyo arrimo badanba ganacsato ahaan ay aad u kordhiyeen aniga lafteedu suuqa meelo badan waan soo maray marka xanuunkii jira iyo xanuun kaloo dhinacii ganacsiga aad ku samayseen marka idinkiiba laba xanuun sameeyey soo maha horta Petri anigu xanuunka aad sheegaysa ma ogi weli Soomaaliland lagagama dhawaaqin cudurka qabta oo yaa coronavirus baa ku dhacay xukuumadna ma sheegin shacbina ma sheegin adiguna hay noogu yeedhi xagga raashinka waliga ka hadlay waxa la wax kordhay oo dadkii raashinka soo waaridayay ay kordhiyeen ma jiro inanka dukaanka haysta hadduu raashinka kordhiyo waa sixir barar dawladda ka mas'uula anaguna gacmaan ku siinayna wax la wax sa kordhay oo baahayo yaala ma jiraan haddii ninka ganacsatadu waxa la iibsada waa qaaliyaha raashinka iyo maciishada maxay niga meel yaallaan maxaad si xalaal ka qaadi doontaa waxaan kala hadlay waxa weeye wax kordhina ma jiraan wax kordhiyaana ma jiraan wax inaga dhiminayna ma jiraan wax inaga go'ayaana ma jiraan kolka lacag labaha ay oranayna baba jirtaba insha Allah gaari ma soo baahidaasna waddanka ma taalo waya gudoomiye maalintii shalay gudoomiyaha hay'adda hortaga afooyinkii keedka shaqo ku shaqeynayaan oo dadka keedka furan oo laga qabtay si wajiga maxaa arintaas labada warseys u qabanay anigu waxaan lahay rugta ganacsiga gudoomiyaha rugta ganacsiga ganacsatada ka wakiilahay ganacsatadina waa ila fadhiyaan raashinka soo waaridaysay annaga kaydkayga iyo bakhaaradaydii waa noo buuxaan kaydka dawladdu wuxuu ka hadlayaa waxa weeye waa hadhuurka u yaalay iyo galeedii uu soo go'day sanadkan iyo wixii uu dalka dawladdu u iibisay marka taas anigu dawladda kama warrami doono laakiin waxaan ka warramayaa ganacsigii raashinka ee aynu keeni jirnay wuu inaga badan yahay gudoomiye dadweynaha Soomaaliland waxay ku jireen safarada raashinka dadweynaha shaqada ka fahmay qodobkii ganacsatada detailska ku yimaanaya ee qorsana iyaduna dadkii waxay ku xayeysiinayaan oo raashin baa iyaga sameeyo waxaan magaalada ka dhacay maxaa dadweynaha ugu baaqaysaa dadweynaha waxaan ugu baaqaynaa laba arrimood mid waa taa raashinka runtii walaahowga iyo dhibta jira dadweynaha abuuray dadweynaha kuyuuga galay xukuumaduna ma oranaysa deebaamisirku waa xore dukaamada tagina kuyuuga gelina laakiin xukuumaddu waxay ka mas'uul tahay wixii sixir barra dadweynaha walaahowga iska daayaan wixii uu yaala raashinkii dalka shuhuriyada uu ka buuxaa ganacsatadii soo waaridaysayna wax warwara ma sheegin dadku ha istajiyaan hana raacaan awaamirta cudurka laga hortagayo ee guddida loo xil saaray ay muxuu ahaa soo jeedisay annaguna waxaan ugu baaqaynaa oo u ballan qaadaynaa inaan wax raashina oo ka go'ayaa jirin wax dawo ah oo ka go'ayaa jirin inagu ummad islaam baynu nahay ilaahay nimcuuna siiyey nimcatul islaam buu siiyey qofka 5 goor weysaysta ee 3 goor wax cunayna falaxasha adeer uma baahna dee wax faraa ku dhaqo waynu nadaafadaas ay ku jirnaa cuntana waynu haysanaa shidaal waynu haysanaa dadka waxa looga digayaa sixir bararka cidda ganacsata ee raashin sixir barar ku iibsa xukuumadda ka mas'uuliyadda talaabadana ka qaadaysa anana ku bartaagay iyo social media boonboonaya warbaahinta madaxa banaan iyo social media dadka isticmaala isla khaldana isticmaalaya iyaga maxaa ku faraysa dawladda fulinta leh anagu hadaan nahay ganacsatada ninkii wax la weydiinaya waan hor fadhiidaan anaga idinka jawaabin in la weydiiyo